sheekadu waxay ahayd annagoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary oo magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahab leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuday waxay tidhi that is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nabi maxamed iyo icjaaskiisi iyo caalam al-ajinna iyo embryology-ga iyo inuu nabi maxamed sallallahu alayhi wa sallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadamka loo sameeyo iyo maraaxil ku ji waxa dhammaan u sheegay aad bay uga mabsuuday marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaanad arkaysid ilaahay wixii qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay ilaahay dambiga may dhaafaya ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa tolo ma eegtaa mise waa dambi ila ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha imika ma kor baad u eegtaa oo ba wejigaad aragtaa mise waa dambi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeyaa ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xidho raggiisa soo dhex taga adigoo intaan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhaahdo waa dumarkiini nin baa la tukanaya dee way dilaysaan haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku odhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad ka goysid inaad meel kale waxyaabo ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talin baad dhex gashay bal u kaadi ilaahay wuxuu ii hawl yareeyay inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla alxuqayl wadaad la yidhaahdo ani waa sheekha ii geeyey muftigii buu ii geeyey muftigii baan ku odhi yaa fadiilati sheekh xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta fama alxukm wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay markaasuu maroora dilaacay qaala ayucsi illaah بهذه الطريقة ومساسة إلهي دم الله وقلها إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله مركز مرة يقسي تشيستا
markaasuu uu ignore gareeyay wadaadka halkaasaan ag fadhiyaa sheekha waxaan ku leeyahay sheekh qofku wuu isugayaa kanadan ku noqonaya iftina fi almas'ala sheekhu markaa wuu iga aamusa wax allaalay wuxuu igu idhaahdo markan la hadlaba wuxuu idhaahdaa laa xawla walaa quwata ila billah yaa sheekh gabadhi mayin muslim misagaal baan ku daynaa laa xawla walaa quwata ila billah markaasaan ku yaa sheekh azidak min ash-shi'ri bayt aan ku sii kordhiyo in waana guurdana maxaynu samaynaa markaasuu yiri inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un mid daba fadhiyaa yaa sheekh qul lahu yaktub فنجعلها أو نضعها أمام اللجنة فتوضها سوقرة وذاتها سوقرة وحن أجد بيننا وإن جوينات معصية داسي فردي مركا وحي ماشى شوقي أردن حنششق ورمية دعوة ما يذهب السؤال الدم بلوجا قال من معصية دا وحن درى مركا مجلس كان إن دم بيجا إذا هاي لقى قال كان ذا لقى قال qof gaali uu ka galay inuu taabtay wadaadka halka jooga waxaana ii cadaysay marka wadaadkan hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro inuu wadnihiisu marka aanu aradin oo aanu asaguna angagnayn inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala iimaankii ku daayay oo iimaankii ku abuuray waxaan jecelahay marka walaalayaal inaan inta ku soo gunaanado ilaahay subhanahu wa ta'ala waqtiga hay noo barakay لكن على مضفر بدن باكرة والله يسكو أركو هدي أنت تابطي أدسكو أركتد أما أوغاتد إن العلامة ضحى أي أدوغو علامة كل حترتد أيهين إسقاد ونفت بدبادي ووضنها وحتكر شيء من ذكر الله وتلاوة القرآن يمساجد كل يماده ينفت نفط الآد حكميسد ويا نفط بنا آدم كوا عجيب وحد برتد أي رعضة هديت مركز طاعة الله يا قيام الليل يا الذكر يا قراءة القرآن يا وحيابها إلى هاي وشعرية نفط كما ويلي سيدنا نفط ويكو صور راعي هديت كم مشغول السيد وحيابها بلا معناه عيار للداونيو سوق دمر سوق لقينيو عرور كبهودي يكوفيدهودي لغا شقينيو وحيابو امور الدنيا اسكو مشغوليسيد ايدو كوف اي كولا تagtay ay kula fogaatay baad arki doontaa markuu malakal maut uu yimaado aniga intaas iga tahay ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله نشهد انه بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ولا ادري إن ولادته وقت السؤال يجواب أي جيران يا إن كلا حكم يجي ورد محاك قاعد علماء هرتش علماء ويسكو خلاف وي شيخ آل الشيخ يا عبد الله المطلق أو شوقي مركا يا الحقين إن يا غديان أنت بويتشوجين وحدثنا رحمهم الله أنت كنا حفظهم الله ويوحفت ودا ويسين كرواية وحنوت جاي مركا شيخ الله إله هذا عبد العزيز إن الفوزان عبد العزيز الفوزان وحي سيهين شيخ صالح الفوزان وأنا شيخ نلتشوجي مرايكن كشنس النضاد وأحوال الغرب يا مشاكل كغرب كتشرة إمشى السنوات ده لدح النولا مسألة دي مركا وحيري وحواجب إن قبرني سيدي وإلى هاي وأبوري اسكو عليسو ومركا وحن أيس جليسي اسكسارته إن اسكو مدو هرمونات كي لو قلت لك إن للذكور أو الذكورية marka male hormones bay dhahdaan marka raganimadii wayna soo celisaa marka irbada isku mudaano irbadahani gartimihi buu ka jaraya codkii buu ka dhigayaa cod naacim oo soft ah in way wax isku mudaan hormoonad unthawiya
marka waa in hormoonada dakariya isku muda oo asligiisii ku noqda waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sanada ah iyo lacag fara badan marka loo doono marka aalati dhakara loo doona ila aalati untha wamkas ayuu xambaarsan yahay gabadh buu iska dhigay marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad waxaan muddo qaadanaysaa fadilati sheekh muddada maxaa la sameeyay kayfa yutaamal maca hada al-insan sidee baan ula macaamilnaa marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir waqtiga xaadirka ah waxay asligu isinu xukunka sharciga uu ognahay qofka bini aadamka waa saddex waa dhakar waa untha iyo khuntha saddexdaa weeye ama dee waa nin ama waa gabadh ama waa labeeb marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo oo ilaahay saa umuu abuurin ayadaa iska dhigtay oo asagaa iska dhigay laakiin bixukma daahirkii haddii qofku doonaya inuu masaajid yimaado walaa budda inuu masaajid yimaado waa inuu qisma dumarka lagu biiriyaa marka qism dumarka waa in lagu biiriyaa hadhow marka codku uu soo noqdo oo arko marka inuu uu soo gelayo qismigii ama noociyati rujuliya ama noociyati rajul uu soo gelayo marka waa inuu marka xagga dumarka loo soo wareejiyo waxaan u malaynayaa xagga ragga cafwan waxaan u malaynayaa inay ka dhacdeen mas'alo saasoo kale ah inay namsa ama Switzerland iyo Sweden meelba ka dhacday imaamku marka wuxuu ka dhigay imaamkaasi xukm al-khuntha laakiin sheekh al-Fawzan wuxuu xukm al-khuntha iyo aydan inni wadaadkan la yiraahdo Salmaan Cawda xukm ah in loo celiyo asligiisii qofka wallahu a'la wa a'lam